in ka badan 10 saacadood ayuu socday dagaal xoogan u dhaxeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo taageero siinaya kuwa deegaanka ee loo yaqaan Macawisley iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab kaas oo ka dhacay deegaanka Masjid Cali Guduud iyo toolooyin ku dhow dagaalka ayaa wax uu ka dambeeyay kadib markii shalay aroortii hore ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo taageeraya dadka deegaanka ee weerar ku qaadeen deegaanada u dhow Masjid Cali Guduud iyo isla deegaankaasi waxaana la sheegay in Al-Shabaab markii hore ee deegaanka Masjid Cali Guduud ay isaga baxeen hayeeshee weerar rogaal celis ah ay ku soo qaadeen dagaal qaatay in ka badan 10 saacadood ayaa halkaas ka dhacay kaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac isla markaana kala gaaray labada dhinac ee dagaalamaya ee qaar ka mid ah dadka rayidka ah ee ku sugnaa deegaanadaasi iyadoo hore u jirtay in qaar ka mid ah dadka ku sugnaa deegaanadaasi cabsi ay ka qabeen dagaalka iyo waliba diyaar garowga maalmihii la soo dhaafay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ka wadeen degmada Cadale ee halka isaga barakaceen gudoomiye hore ee degmada Wadajir Axmed Daaci oo la hadlay warbaahinta isla markaana ka mid ah mas'uuliyiinta horkacaya howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab ee ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in dagaalka inta uu socday khasaare xoogan lagu gaarsiiyay ururka Al-Shabaab sidoo kalena qayb ka mid ah gaadiidka ay wateen laga gubay marka waxa lagu isku gaaray 10 saac waana laga saaray kabaldhici aan ka saarnay meesha ciidamadayna ku sugan xaaladiisuna aad ay u fiican tahay cadawgana aad loo joogiyo magan wallahi ma qiyaasi karo laakiin hadday muslimiin islaamda xaal asay waa saareen magan marka xaal wali waa faan oo la faro kama qodno iyo dalka laga saarin Cali Guduud laga qabsaday jaw farax iyo nooma farxad gelinayso kaligeer oo birkii dalka dhamaan rabnaa inaan ka saarno laakiin hadda jab xoog laha ku gaaray maas lagana deeyma doono waa la dabaqay doona magan runtii wax la gooyay waa jiraan laakiin wax laga qabsaday hadda gaariyaha waaweyn oo fariisaareeyay ma jiraan markii waad ogtahay meelaha gaar koor gaari niman qadayaan iyagu weerarahay ma keenaan gaari ma dhigaan laakiin hal baabuur la gubay qaybo badan rag badanna waa laga dilay wararka naga soo gaaraya saaka iyo deegaanka Masjid Cali Guduud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay waxaana wararka qaar ee la helay ay sheegayaan in ciidamadii ka tirsanaa kuwa dawladda ee shalay dagaal kula wareegay ay halka isaga baxeen halka warar qaar kood ay sheegayaan wali ay socdaan howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ka socda deegaanka Masjid Cali Guduud iyo deegaano kale oo ku dhow halkaas oo hore ugu xooganayeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 104 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor